السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود هذا مركله إيو FPL Somali وأنا جو هداير عبد العلي إيو FPL Somali وأنا أسكو وصل لابنينا تدوادي اللي صار في بحن كهذين يفا يورو لابد كون لباتن فانتسيسة لكن ما أنت وحن كهذينا إن سيد الرسمي الله شاعي FPL لابد كون لباتن كو لابد كون لباتن وبسيط كرسمي ستوصل لوجه اللي كرو وأتشحذ هذا ديارسن كتب maalin ka hor ayaa waxaa la soo daayay ciyaaryahanada iyo qiimahooda oo kooxaha qaar ay ku soo daabaceen bogagooda ee social media ciyaaryahanadaas la soo daabacay si gaar u fiirin doona iyo kooxaha qaar kulamada hor yaala ee ugu soo horeeya saaxiibayaal mar kale ku soo dhawaada FPL Somali waxaan idin xasuusinayaa in aad ugu soo biri kartaan channelkeena iyo dhinacyada Facebook, Twitter, iyo Instagram oo aan ku leenahay bogag oo halkaas oo ku daawacno wararka la xiriira fantasiga saaxiibadeen ugu yeera kuna soo biira saaxiibayaal kooxda ugu horeysay ee soo saarta shaxda qiimaha ciyaartoyda waxay ahayd kooxda Arsenal oo soo saartay ilaa 4 ciyaartoy ciyaaryahankeeda Aubameyang ayaa ugu weynaa oo lagu bedelay maadaama xilli ciyaareedka hore uu ku bilowday khad dhexe hadda loo bedelay weerar qiimaha lagu bilaabayna waa 10 qiimahaasi waxaa dhigi karaa waa yara qaali laakiin xilli ciyaareedkii ka horeeyay Aubameyang qiimo intaas la eg oo ka badan ayuu ku bilowday qiimo ka yarna oo ku dhameystay qiimaha ciyaartoyga kale ee xusida mudan waa Pepe waxa uu ku bilowday 7.5 Pepe waxaa xasuusanaa xilli ciyaareedka qaybtiisa dambe in qaab ciyaareed fiican uu soo bandhigay oo iyadoo si fiican ugu socoto horyaalka ka dhamaaday oo maamulayaasha qaar ay dhahayeen Pepe sidan ayuu ahaan jiray marka Pepe hadda qiimihiisu waa macquul 7.5 waaye waxa uu ka mid noqon karaa mid ka mid ah maamulayaasha kuwa ay aad ku iibsadaan ciyaaraanka kale waa Smith Rowe qiimihiisu waa 5.5 Smith Rowe waxa uu ka mid yahay ilaa 19 kulan ayuu ciyaaray kooxda Arsenal xilli ciyaareedka qaybtiisa dambe isagoo ka mid ah da'yar badan oo Arsenal u soo kacday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay muujisayna in ay soo nooleyn karaan ciyaartii lagu yaqaanay Arsenal ciyaaraanka kale waa Gabriel qiimihiisu waa 5 oo Gabriel oo dhinaca madaxa aad ugu fiican waxa sababtaas ayaan laga yaabaa in qiimihiisa xogaa qaali looga dhigay waxa uu noqon karaa mid ka mid ah ciyaaryahanada maamulayaasha dhibaha u soo celiya kooxda Burnley aan fiirinayna oo iyagana ilaa 4 ciyaartoy soo saartay ciyaaryahanka ugu horeeya waa goolhayahooda Nick Pope waxa uu ku bilowday qiimo aan raqiis ahayn oo 5.5 Wood oo ka mid ahaa raggii kooxda Burnley ka caawiyay in xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay ka badbaado in horyaalka heerka labaad u dhacdo waxa uu ku bilowday qiimo gaaraya 7.0 ama 7 milyan Tarkowski oo asna daafac uga ciyaara waxa uu ku bilowday 5 milyan Ben Mee waxa uu ku bilowday 5 milyan asna kooxda Burnley kooxda Brighton hadii aan fiirino ayagana ciyaaryahanada afarta ah ee la soo saaray waxa uu horeeyay Sanchez goolhayahooda Sanchez waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanada xilli ciyaareedkii la soo dhaafay standard performance ahaa oo si fiican u ciyaaray isagoo ku guul lagu abaalmariyay in xulka Spain loo qaato oo hadda uu ka mid yahay ciyaaryahanada Spain ku matalaya UEFA Euro 2020 Sanchez oo asaga wuxuu ku bilowday qiimo macquul ah hadda oo 4.5 milyan ah waana maamulayaasha in badan oo ka mid ah hadda way ka sii fikireen iibsadaan Pascal Gross oo ka mid ah ciyaaryahanada dhinaca caawinta ku fiican kooxdan u ciyaara waxa uu keenay 6 milyan Trossard asna wuxuu keenay waxa lagu bilaabay 6.5 milyan ayaa lagu bilaabay Trossard waxa xasuusanaa in xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu ka mid ahaa mid maamulayaasha aad ugu abaalmariyay oo waxaa jirtay isbuuc aad loo aaminay oo blank game week ahaa oo 2 gool dhaliyay kabtana in badan ay saarteen maamulayaasha qiimo fiican oo uu keenay Bissouma oo asna qadaxa ah ayaa ka mid ah ciyaaryahanada Brighton ee la qiimeeyay qiimihiisuna 4.5 milyan kooxda Crystal Palace ayadana waxay soo saareen ciyaaryahanadooda afarta ah qiimahooda waxa ugu horeeya Zaha Wilfried Zaha waxa lagu bilaabay qiimo gaaraya 7 milyan Guita oo ka mid ah ciyaaryahanada ay maamulayaasha aad u isticmaaleen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay goolayaasha ah waxa uu ku bilowday qiimo macquul ah oo 4.5 Mitchell oo daafac bidix uga ciyaara kooxda Crystal Palace
ayaa qiimihiisa la shaaciyey asna wuxuu ku bilowday 4.5. Mitchell waxaa hadda aad loo siinayaa in ninka ka horeeya lagu magacaabo Van Aanholt uu suuqa ku jiro oo laga yaabo in kooxda uu ka tago. Marka sidaas ayuu hadda qiimihiisa si degdeg ah hor looga shaaciyey. Benteke oo ka mid ah weeraryahanada kooxda Crystal Palace ayaa isna ku bilowday qiimihiisa 6.5 milyan. kooxda Leeds United oo aan ognahay inay koox u samaysan weerarka maadaama uu hogaamiyo tababar Bielsa iyo shaxdiisa ku dhisan weerarka waxaa la soo saaray ilaa 4 ciyaartoy ninka ugu magac weyn oo hadda la dhihi karo qiimihiisu waa qiimo aad u raqiis ah waa Rafinha 6.5 milyan ayaa lagu soo saaray shaacintii ugu horeysay. Marka waxaa suurtagal ah in qiimahaas uu ka bato maamulayaasha hadda iibsada ee ka faa'iideysta qaab ciyaareedkiisa iyo weerarkiisa iyo waliba maadaama uu rigoorayaasha uu ugu qoran yahay kooxda in ay wax badan ay ka tari doonto oo aynan u baahan doonin inay iska iibiyaan ama ay yani ciyaaryahan ka qaalisan ay gataan maadaama weerarkiisa iyo dhibac soo celintiisa ay aad u fiican tahay. nin kale waa Bamford 8 milyan ayuu ku bilowday. qiimihiisu waa u qalmaa maadaama uu 17 gool ciyaareedka la soo dhaafay u dhaliyay kooxdana uu hogaaminayay oo uu ku hogaamiyay inay 10 ugu sareysa ku dhameysto ciyaareedka la soo dhaafay. daafacooda Cooper ayaa ka mid ah ciyaaryahanada la shaaciyay oo 4.5 milyan ku bilowday. Misleha goolayaha kooxda Leeds United oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu ilaashada badnaa intii dambe ee ciyaareedka waxaa lagu bilaabay 5 milyan. kooxda Liverpool dabcan waxaan ognahay Liverpool inuu ka mid yahay ciyaaryahanka ugu qiimaha badan ciyaareedkii la soo dhaafay bal hadda maxaa u soo baxay. Mohamed Salah waxaa lagu soo bilaabay qiimo gaaraya 12.5. qiimahaasi waa u qalmaa maadaama ciyaareedka la soo dhaafay lagu guuleystay gool dhalinta hal gool oo kaliya. marka intaasna waa u keenaa inta badan waana u qalmaa. ciyaaryahanka kale kooxda Liverpool waa Alexander Arnold oo ilaa hadda qiimihiisa aan hoos loo dhigin oo 7.5 ayaa lagu bilaabay milyan. marka qiimihiisu waa yara qaali aan dhihi karaa inkastoo uu qaab ciyaareedkiisii ciyaareedka la soo dhaafay uusan ka jawaabin qiimahan lagu bilaabay hadda oo qaybtii dambe uu soo yara laabtay laakiin wali waxaan is dhihi karaa qiimahan Alexander Arnold waa yara qaali. saaxiibkiisa Robertson asna 7 ayaa lagu bilaabay waa qaali waliba. Jota oo qadka dhexe ah waxaa lagu bilaabay 7.5 milyan. kooxda Norwich City oo aan ogahay in maamulayaal badan ay aad u xulan doonin laakiin waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Timo Pukki haddii aad xasuustaan xil ciyaareedkii 2019-2020 waxa uu mar ahaa gool dhaliyaha ugu badan ciyaareedkaas qaybtiisii hore oo ilaa 6 gool mar uu dhaliyay jirto oo Manchester City uu gool ka dhaliyay oo Pukki Battle la jiro oo dabaaldegii Pukki la jiro. marka haddii aad ka fikirayso inaad soo iibsato Pukki qiimaha lagu bilaabay hadda waa 6 milyan oo kale. waxaa suuragal ah in kulamo adag ee hadda hor yaalla oo kooxda Norwich maamulayaasha in badan oo kamid ka wareegan doonaan laakiin qofka ku qamaara waxaa suuragal ah Pukki inuu isku soo caanbixi mar kale meeshan. Tim Krul oo goolaye khabiir ah ayaa asna ka mid ah kooxda Norwich 4.5 milyan ayuu ku bilowday. Hanley oo asna daafaca 4.5 ku bilowday. McLean waa qad dhexe waxa uu ku fiican yahay inuu banooniga banaanka toogto 5 milyan ayuuna ku bilowday. marka Norwich kooxda aad wax badan ku keeni lahayd waa maamula. Tottenham haddii aan fiirino ciyaaryahanadooda dabcan waxaa ugu horeeya ninka goolinta ugu badan ciyaareedka la soo dhaafay ku guuleystay Harry Kane oo qiimihiisu uu yahay 12.5. qiimahaasi waa qaali hadda laakiin waxaan isleeyahay uu qalmaa maadaama uu qaab ciyaareedkiisa uu ka turjumayo gool dhalinta iyo waliba kanta dahabka iyo koobta caawinta uu ku guuleystay inkastoo uu Brahim Diaz uu kaga guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican dhinaca BFA-da iyo dhinaca Football Writers Award-ka oo uu ku guuleystay De Bruyne. marka waxaa la dhihi karaa ninkan ayaa u qalmay ciyaareedka la soo dhaafay inuu ku guuleysto abaalmarintaas. waxaanu ku bilowday hadda 12.5. Højbjerg ayaa ka mid ah asna waxa uu ku bilowday 5 milyan.
Sun Heung-min Son wuxuu ku bilowday 10 milyan qiimahaasi waa u qalma asna haddii Kane uu 12.5 ku bilowday Sunna 10 ay ku bilowday Hugo Lloris oo kabtanka kooxdan ah waxa uu ku bilowday 5.5 haddii aan fiirino West Ham waxay soo saareen ilaa 4 ciyaartoy afartooda ciyaartoy waxa ugu horeeyay Mikel Antonio waxa uu keenay ku bilowday 7.5 Soucek 6 milyan ay ku bilowday Soucek Cresswell 5.5 milyan Kofalna 5.5 milyan Kofalna 5 milyan aan raadin kooxda Manchester United hadii aan fiirino Manchester United waxa ay soo saareen ilaa 4 ciyaartoy ciyaareenka ugu dhibcaha badnaa xilli ciyaareedka la soo dhaafay Bruno Fernandes ayaa ugu horeeya waxa uuna qiimihiisu ku bilowday 12 waa qiimo aad u qaali ah laakiin haddii uu ka jawaabo waxa uu noqon doonaa nin u qalma qiimahaas Maguire waxa uu lagu bilaabay 5.5 Pogba waxa uu ku bilowday 7.5 xilli ciyaareedkii hore waxa uu ku bilowday 8 qiimo ka yar oo ku bilowday Rashford waxa uu ku bilowday 9.5 milyan Rashford xilli ciyaareedka la soo dhaafay aad iyo aad u muusan soo bandhigin gool dhalintii iyo waxyaabihii lagu yaqaanay oo waa laga badnaa laakiin xilli ciyaareedkan waxaan ka rajeynaynaa in maamulayaasha in badan oo ka mid ah oo wax badan u soo saara haddii aan fiirino kooxda Aston Villa ayagana oo aad suuqa ugu jira oo ciyaaraankii kooxda Norwich City ee Burnley lagu magacaabi jiray caawinta xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 aad u soo muujiyay ayay soo gateen Grealish oo hore u haysteen marka ciyaaryahanno gaaraya 4 ay soo saareen oo qiimahooda hadda Grealish waxa uu ku bilowday 8 milyan Martinez wuxuu ku bilowday 5.5 Watkins asna wuxuu ku bilowday 7.5 Mings waxa uu ku bilowday 5 milyan marka qiimahaasi gaar ahaan qiimaha Grealish waxaan dhihi karaa waa qaali laakiin Janis abuurista iyo Bononiyo waxa la yiraahdo in tagista goosha in uu ku fiicnaa xilli ciyaareedka la soo dhaafay oo dhaawac uu ka galay kooxdan ayaa muuqato in sababtaasna lagu siiyay qiimahaas kooxda Brentford oo ah koox ka mid ah kooxahaas xilli ciyaareedkan ay ugu horeysay Premier League oo markii ugu horeysay ay ka qayb galaysa ayaa waxa uu ciyaarayay xilli ciyaareedka la soo dhaafay horyaalka hoosena ka ciyaaraysay ciyaaryahanno wali uu ka mid yahay waliba ciyaaryahanka lagu magacaabo Ivan Toney oo ku guuleystay kabta dahabka ah horyaalka heerka hoose marka qiimihiisu waa imisa hadda Ivan Toney qiimihiisu waa 6.5 waa weerar aad u kulul waxaana laga yaabaa inuu maamulayaal badan uu dhibac u keeno kooxda ugu horeysa oo wajihi doono waa kooxda Arsenal kulanka ugu horeeya garoonkooda ayaa lagu ciyaarayaa Brentford ciyaaraanka Pinnock lagu magacaabo waa daafac aad iyo aad u fiican sida ay xilli ciyaareedka la soo dhaafay uu muujiyay qiimihiisu waa 4.5 goolhaye Raya waxa uu ku bilowday 4.5 Bomomo oo asna ku bilowday 5.5 kooxda Chelsea oo ayagana xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ku guuleystay koobkii UEFA Champions League ayaa ciyaaryahanno 4 la soo saaray qiimahooda ciyaaraanka ugu horeeya oo ugu qiimo badan waa Timo Werner wuxuu ku bilowday 9 milyan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay wuxuu ku bilowday 9.4 marka waxa muuqata in hoos u dhac ka muuqdo maadaama gool dhalintii iyo waxyaabihii lagu saaray uusan muujinin Mendy ayaa ku xiga oo ku bilowday 6 milyan waa goolhaye 6 milyan ku bilowday wuxuu ka mid yahay goolayaasha inta hadda aan aragnay goolayaha ugu qaalisan Azpilicueta ayaa asna ku bilowday 6 milyan Kante waxa uu ku bilowday 5 milyan Kante in badan oo maamulayaasha ka mid ah ma iibsan doonaan laakiin qiimihiisu waa 5 milyan kooxda Everton ayaa iyagana soo saaray ilaa 4 ciyaartoy oo ciyaaryahanadooda ugu saameynta badnaa xilli ciyaareedka la soo dhaafay waa Calvert-Lewin waa qiimihiisu 8 milyan James Rodriguez 7 milyan Richarlison 7.5 Digne 5.5 kooxda Everton waxaa ka tagay tababare Carlo Ancelotti isbedel ayaa ku yimid marka wali tababarada samaysan aqoonsanin laakiin saameyn badan ay ku yeelatay in tababarihii Carlo Ancelotti uu ka tago waxa ay u diyaar garoobayeen inay isbedel sameeyaan garoon cusub ay u diyaar garoobayeen waxyaabo badan laakiin bal aragno isbedelka rasmiga ay sameeyaan kooxda Leicester City ayaa ayagana ka mid ah kooxaha soo saaray ilaa 4 ciyaartoy
Schmeichel waxa uu ku bilowday 5 milyan. Iheanacho waxa uu ku bilowday asna 7.5. Iheanacho waxaan xasuusanaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waliba qaybtii dambe in qaab ciyaareedkiisa gool dhalinta aad u fiicnaa oo maamulayaal badan oo aad uga farxiyay. Maddison asna waa 7 milyan. Maddison inta badan dhaawac ayaa saameeyay xilli ciyaareedkiisii la soo dhaafay, laakiin bal aragno waxa uu keeno xilli ciyaareedkan. Jamie Vardy 7.5 ayuu ku bilowday, waana weerar. Jamie Vardy waan xasuusanaa, waan ognahay saameyntiisa gool dhalintiisa iyo waliba rigoorayaasha uu ku guuleysto iyo uu qaato waliba. Kooxda Manchester City ayaa ugu dambaysa kooxaha soo saaray ku dhawaaqista ciyaartoydooda qiimahooda. Diaz oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican Premier League waxa uu keenay 6 milyan. Mahrez waxa uu keenay 9 milyan oo lagu bilaabay. Sterling 11 ayuu ku bilowday. 11 waxaan dhihi karaa qiimihiisu waa yar qaali oo uma qalmayaan dhihi karaa sababtoo ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay qiimihii uu ku bilowday in ka hooseysa ayuu ku dhamaystay. De Bruyne waxa uu ku bilowday 12 dhibcood. De Bruyne laftiisa qaali waaye. De Bruyne hadda waayadan dambe dhaawacyadiisa aad u batay, qiimahan waxaan isleeyahay uma qalmo, laakiin markii la dhaho qaab ciyaareedkiisa iyo markuu garoonka ku jiro saameyntiisa waan wada ognahay. Saaxiibayaal, haddii aad ku soo biirtay channelka mar dhow fadlan subscribe saar, sidoo kale bell icon-kana furo. Ciyaaryahannadan hadda qiimahooda la shaaciyay waxaa suuragal ah in intaasi ay ka bataan saameyntooda oo waliba ay qiimahoodana intaas ama uu ka kordho ama uu ka yaraado. tusaale ahaan hadda Aubameyang ayaa kugu filan tusaale oo xilli ciyaareedkii ku bilowday qiimo badan laakiin qiimo ka hooseysa qiimihiisa ku dhamaystay. Marka ciyaaryahanada oo dhan ayaa saa noqon kara. Welina waxaa socda isbeddello kala duwan oo maamulayaasha ay sameynayaan. Inkastoo hadda weli wax kasta ay bilow yihiin, haddana sidaas ayaan iskula socon doonaa hadduu Ilaahay meeleen. Saaxiibayaal ku biira saaxiibada nagala socota Facebooka iyo Instagramka oo linkyada hoose ama ciwaanada halkan ay ku qoran yihiin, linkyadana description-ka ay ku qoran yihiin qaybta faafahinta. aad iyo mahadsantiin saaxiibayaal. barnaamijyadeena la xiriiray Euro Fantasy 2020 waan sii wadi doonaa oo weli waxaa dhexda maraya Euro Fantasy aadna noola socda. aad iyo mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.